intaan haddeer madasha fadhida oo dadka labeyntiisiiya iyo in baxday ilaahay inoo idmay inaynu maslaxaddeenna ama wanaageenna ka talino waa alxamdulilah. waxaan aad u soo dhaweynayaa khibraddan qiimaha leh intii soo ayitay iyo intii soo agaarsatay. mar kastoo qof hadlo waxaad is leedahay xaqiiqda kaasa ah ka hadlay. waxaa dhacda marka rag badan inayan madasha ka hadlin oo nin waliba murtidiisa iyo wixii maslaxadu biday ay ka hadli lahayd. waxaad ku raali garoobaysaa nin dee intiina madax dhaqameedka iyo dadweynahana annaga wakiilidiin ah haddaan wanaag ku hadalno na haddee intaasaad ku qancaysaan. haddii haddee saluug ma jirtana hadda inaydaan bahadin. inta siyaasiyiintaana waa la mid oo iyagaa inta kale wakiil ah, inta culimaadiintaana waa kale. intaa haddaan ka gudbo anigu aad baan ugu faraxsanahay maanta shirka kan. waxaana reer Puntland u sheegayaa maanta meesha ay joogto aynu joogno waa Garowe, waa caasimaddii Puntland. inaan mid joogana laga lahayn mid maqanna laga lahayn. taas intaas reer Puntland baan u sheegayaa. waxaan kaloo u sheegayaa maalintii Puntland la dhisay laba magac may lahayn, Puntland baa la yidhi. qof waliba waxa kaga aadan dalka horumarkiisa iyo jiritaankiisa ama dibdhiciisa meesha uu ka joogo iyo magaca uu leeyahay inuu kaga qaybtamo oo kaga qayb qaato. intaa haddaan ka gudbo gobasha maanta waxaa dhigay dowladda, casumaadda ayagaa fidiyey, inta tan ayagaa isugu yeeray. waa ay hadleen waana maqlayseen wixii ay yidhaahdeen. anigu 14 sano iyo wax dheer baan isin ahaa. kollay qof bili aadan oo nool baan ahaa iyo wax badan oo ama saana ama socod baa soo martay. waxyaalo badan oo aan intaa dhagahayga ku dhicin ama aan jeclaa inaan maqlo baa maanta dhagahayga ku dhacay. dowladdu raggii u hadlay murtii fagartiis ku gowracan, wasiiradii baa joogay, agaasimayaashii baa joogay, xildhibaanadii baa joogay. waxay isku raaceen inay wax ka qabad dalka ama dadka ay qabtaan. hadalku haddii uu mid yahay laba lagama dhigo. soomaalida waxay tidhaahdaa hoo meel u baahan hadal wax ma taro, meel hadal u baahanna hoo wax ma taro. anigu intii aan isinka ahaa intii ka horreysay nin waxaan ahaa nin u adeega, miyi baan joogay, magaalo ma tegi jirin. intaan dowladdii Soomaaliya burburin deegaanka reerku meeshu ahaa waa malaynaysaan meel dowladii joogto 100 kilomitir baa ay dhigtay. meesha taar ma lahayn, taleefonna ma lahayn. askariga 100 kilomitir ku jira baa qofka shibilka ah oo halka jooga ka biqi jiray. macnaha in dowladnimadu wax qaaliyato hadduu arkan hadda iska daa qof dambi samayn karay oo ama dalka geli jiray ka geli karay ama dadka geli karay ma jirin. haddii la burburay sida hadda ragga odayaasha ah ay sheegayeen inoo sheegayeen 98 Puntland wixii loo dhisay qabiil ha lagaga baxo iyo wiil qori sita oo wax bi'inaya way ahayd. weli waynu ku jiraa
وحنون ومرقاد وبرري وقاعه هذه مالمها إنه كتير نروح ديرة أيه دعيسي دواتوي في مالي تأخذ لكان لقيسي dadku Soomaalida tiraahdo ma jaaraysan labana xoqosho labana xaarash dadku waa dawlad iyo dadweyne dawladii ragii u hadlay wakiilka u ahaa waxay cadeeyeen inay wax qabanayaan dadweynihii inta ka hadashayna waxay ku cadeeyeen inay wax qabad diyaar u yihiin oo waxa ay doonayeen oo ilaahu wiilka iga hadlay ay tahay dawladda marka hal baan leeyahay dadweynahana hal baan leeyahay dawladda waxaan leeyahay 13 sano ama 14 sano aan isinka ahay ragna iga horeeyay ragna iga dambeeyay wixii aan ku dhimanaynay dayacna naga haystay dhibaataduna noogu imaanaysa wax dawlad ilahayd weey ee waxay lahaa ma haday nabadoon tahay haday isi tahay haday shiiq tahay wixii inta dayacaas iyo dhibaatada iyo culayska 14 sano iyo ragii iga horeeyay ay haystay wixii dawlad ilahayd weey sababtoo ay ku tahay mid wax dila oday baa doonayay mid wax dhaca oday baa doonayay mid walba ama dhiig ha ahaato ama qaan ama qurgoy shaqadii Allah haydeen haddii maanta ilaahay idin xusuusiyay afkiinana ka yeeshay wiil waa labada cadlug lagu darwo annaga ay ku gacansiinayna anoo u hadlaya dadweynaha reer Puntland oo wakiil ah ayaan idinku gacansiinaynaa dawladdu xaq ay leedahay inay hesho inaad ka heshaan dawladdu dadweynaha xaq ay ku leedahay annaga wakiil uga annaga idinku la shaqeynayna annaga hoggaan uga dawladda xaq loo igmado ay kitaabka u martay ilaa madaxweyne ilaa ninka ka sii hooseeya inta waaweyn baa la sheegay yar yar kam diiwaan la sheegay xaq ay leedahay diyaar baan u nahay xaq laga leeyahay baa laga rabaa markii hadalka dawladdu oo ragii hadlayay ay ku dhagisan yihiin dulki dawladda dambiilaha meesha xanuun oo maragaad oo barar iyo hunqaaco waxa ka muuqata dawladnimo sharciga ay lahayd inay diyaarisay oo ay ku shaqeyn lahayd oo xaq loogu leeyahay oo ay xusuusatay halkaan uu naga yaala xaq aad leedihiin oo dawladnimadu leedahay noogu imaada odayaasha iyada nabadoonnada iyo ismada waa helaysa xaq aad leedinku leeyahay oo dalku idinku leeyahay baa leedinka doonaya maanta awal waxay ina dhextii warqad bayaada oo aan waxba ku qoray laakiin maanta waxaad soo dhigteen warqad wax ku qoran yihiin iyo wax qabad iyo qaabkii dawladnimo laga leeyahay dhinaca kale annaguna waxaan ku qoraynaa intaas aad ku soo qorteen kale sharciga aad halkaa ku soo qorteen waa idin la qaado waxaan u malaynayaa ragga dawladda hadlay xasan shiraa ugu hadal cadcadaayo uguna raagsiiya badnaa
حسن شرعي قاعدين كنت وكل قاطي كي أنا كقولها أنا وكهرباء شرعي نضاف دولة النمو يدوينا إنه دحينية وحي الدولة دي لهديانا كواي دولة ما أنت هذا وعد عدا أنا الدوينا وحي دولة دي كلها هدي يقولين يكون فضودان وحا ما أنت قاضي أنا جاي فضودان ما يسوي حق قاضي يا نقول لا بقول أما صدق قول وحا يقوم مغان ترسو وحا يقوم مغان بارتي السنة إلى محمد سياد أما الصومالي مركي حرية قاضتي أما ما أنت اللي تشوفه دولة دي وحي أي لها يؤيد السيد أما عبد الرحمن ها ميغارو أما عبد ولي هم ميغارو أما متكلي هم ميغارو دولة دي وحي لها يؤيد السنت وحي دولة دي بان كهرباء هدي جودها مقالة تهي إيه هدي ميغات هدي أن كاواي حساب باينو دحيس سودانku way ga dirixsan yahay loo reer magaal buu ahaayo hadaa iyagu wuxuu qiray guri uu leeyahay in la dumiyado mindhay badweynta ku jiri anigu ma lahayno hadee ninka gadaalka imaadka abaana laakiin waxa iga ballana kan deganay hadii danguudi gasho hadaana furihiisa salaadii عاد الله وامدان دل ولاقي isku soo duub habaa dhamaanto waa dhabo duca dhamaanteedna waa noolow mintidii iyo macashi dawladnimo lahayd waa idin dhib waa idin kaga damaynayna waa idin ku gacan siinayna inta aanu kaleena سقاشن هدي عاد قبطان ومدي إذن كم منتهي حساب باينور حقو حسابته سقاشن هدي عاد حسان ومدي يقول منتهي هي وقف النينا الدوري آخر منك إذن كي تاسان دي له تدوينها وحن له والروابة واحد يركبان لقوتلي وهو يركب هدي الله يتولو والحمد لله وأنا قاعد بان عدك يعدينا قادتي هديان ليتولين ورب العالمين ده أول بوان قاعد عدك يجينا مرة اعتقاد مش مرة دردر بايسي سيادة مرة أنا قاعد بان بدتك يقول ديرين نوله يقول ديرين intaasoo odaya oo madax dhaqameed oo meesha fadhiya midaan wiil jiriyi qoorta daasadu gelin ma jirto midaan nin boqol jooga 500 ku gaarsiin ma jirto midaan gabar konton joogta 200 ama 300 ku gaarsiin ma jirto qabataan ninka ka sugay حاشا لله جيلو حشيسة كجادله نولها بدن كيسو حيوان كمركي الإرادة ضدك اللي جريه وبدن كورو وحيو بدن تهاي مركي شيء ودرو إنه ليفو لكن جيلو إنه أرسل ما هن ما ليفو وحاد كنتين وحل الديدي كرماه فوحن ويني يسوعين وايد لا قادم فانا يدوق عن سينا انت اصلا ليه هذا الكي هدايا محيديري ونك عن صوحره صباحد الضمان كو ارغنا فرحده جنرال مركيا دونيسي من نقدون باكو دري بس أركتي هذا كودون تقولي نيك مركا تم كوي ما نيا هدو أنت كاغا مغنانا يكوما دري
هذا يصدر إنك أسمي الدبيلية هذا إنما دون كام سيدي كام نسيدي لو تقول تهدوس الشرك ودري أما كوكيني ما أنتو كاسيد بوسيداي ما جريسنا عنه ما جريسنا إن هذا دو كيتا يوسيديس بيانك إيتا لو تقول تهواجروا يا ليه وإنك أنت يريليه تبديلا مركان صوحي كده بتجمي ما تقصد تبديلا هاي الحين نين قال لك برضه كده وكذلك مركا جيلو جيلها هو سودو ماشاد وحقيستي iyo waxaad wax dhibatay wixii hadii kala xisaab oday miskiin oo meeshaas jooga يا هدو وركو كولا يمادنا سيدي ما ياكو فينا هدو سكو يمانا هدو وابقود افكيسو كداف سيد سكو صدوبو نبا وحي ابهود انت وحي ورمحاول على يالو نو بلنا ابهين دمي وحيننا واكن حوغا با قيب كميدهو اني عبد الله سعيد وكلا تليع laga dareemo marka raasu wadi ninkii waxeena hagarka gala qoori xira Allah tiim wixii ninkeena waxeena hagarka gala xoolaheena iyo taladeena ninkii hagarka gala qoori xira Allah tiim هذا إن نراه نغوري حراء الله يدينترو ماذا ولا ولا وثورنا يا وصلنا الله هاي إسلاك ويصير عشي مركا تاسع إنه بلنا تاني كاسر رجع يري باي إنه بلنا مركا وحن هذا الكي كعب حياة oday على إنه واحد للوجيه وحنا كتير يجوز دولة واحد كانت واحد لا تهاي واحد اللي يرجع واحد في هنا ينشأ واحد كتير المجد وحي ذلك وناجي سكوتشون يذكرون أنت الدولة كتير بعد كله أنا أقول أنت الدولة كان نايم كله وحيرت هنا أنا قلنا كل قبل أول قلت لو مكيرا إنه عربي يرد ينشر إسقى نقاطته أتذكر أنا اسمه وحلو مهاري نكيكو هذا يهول هايسا سيدي تقول شيء يعني ما توهان سلها ويالو نوال بوحو هيو كينا يا بل أدو محا كينيس قولوا إيه حرده يحنين تنوي باتاي هاموس وهم نسكده لكن دغنا يان لانا هايو نينا في ساي كسو بحده ورفري حق الدولة كل الدولة دويغا كان نينا كبيري مركا بعد هدان كي دولة دلكيني مكيغا كيني هذه أداد مهتتهين انت باينو بلنا رغب الابو قلبت انت لينا هاي لغا سوغ انت لينا هاي باين كسوغينا حالي حكم الله نوصوبي كل خير الله كدي عيبتنا الله استر عملكنا الله سوبي عفي عافنا الله ينسي قوي قناعه الله ينسي نودي نحرس الله ينسي وحبك الله شافيو هدي دتهي هدي دويته هدي دودي هدي ديرته وحي إسلام وبك الله عافمات بقبنا الله وتياج صومالي مصلحة خير قبطة الله نحن صومالي مصلحة خير قبطة الله نحن إلى إذن كي مسلم كميرتو مصلحة خير قبطة الله نحن صاحب المراد نروح والمراد في سؤال محسين المصلحة مقبل الله وقدره كلن كينا كلن خير الله كدره كلا تقينا من خير الله كدره إلى وحي ونأكسنا عن سجون ربي ونو أخبر
ربي وحي وناكسن وعن سكوني نوع ربي وحي عن وناكسنين إلى ودي عن كام قال إلى خاتم ذي الخير كخت إلى لو تلوت يابشر عن كام سكدارين إلى نوحر وخير دارين نوف إلى خوف كنجمع إننا إلى مدرب والصلاة دارهم يدار الدين الله إلى نقصي إلى مدان عقار كيسو كود على كيسو كومي بانو كابر إلى سكين ويان إلى سحر صلاحين اللهم صل على محمد شركة أساس له كفر السلام عليكم ورحمة الله